muddo 15 sanadooda gaariga ayaan dhex seexanayay. waa aabe gaboobay oo da' weliba danyara muddo 15 sanadooda waxa uu dhex seexanayay gaarigan idiin muuqda welina waa uu dhex sooxdaa waxa uu ku nool yahay magaalada Hargeysa. gaarigani waxa uu yaalaa oo aabahani seexdaa geerashuu ka shaqayn jiray waqtigii uu xoogga ahaa. ma wada helo aabahani afarta waqti, ma haysto hoy iyo hutoona, inta ugu badanna waa qatan yahay. ma haysto cid dharka u maydha ama hayso oo xanaanaysa maadaama uu taagan yahay waqtigii lahayn lahaa. gaarigan ayaa baro iyo beyd u ah waxa ummadda islaamka inay soo caawiyaan una gargaaraan oo gacan islaamnimo u fidiyaan. Imika muddo dheerba gaarigaasaan dhex seexanayay 15 sannadood. muddo 15 sannadooda gaariga ayaan dhex seexanayay. shaqadaydu makaanig birtuun bay ahayd. berigii hore birtuun baan ka shaqayn jiray soomaad garan. markaa imika waan itaal yaraadayoo birtii waan ka shaqayn kari waayo ma shaqeeyo moogta. wax hantiyana meel maan dhiganoo hanti ma lihi, guri aan seexdo ma lihi, magaaladaasaan dhex wareegaa. markaa dadkii aanu axsaabta ahayn niman makaaniin oo aanu axsaab ahayn geerishkoodaan iska dhex seexdaa. gaari yaroo dhex yaalla geerishka ayaan dhex seexdaa 15 sannadood gaarigaasaan dhex seexanayay. wax ilaa hadloo waxay taraa amba waxay sheega oo hagaagsan maan arag. dadka waxay qabanaya waxay la qabanaya ma diidayo. waxa weeyaan waan u ducaynayaa waliba waan ogolay hadday wax igu tarayaan wax la dhiibayo waa ogolay. dadka hadalka yar aan dadka waxba weydiin baan ahaa. maantana danuun baa maxay ahayd halkaa dhigtay moogti mali kuwii aanu isugu dhaweyn waxba ma marayaan oo aba kuwaan aan iskaga tegay guryahooda aanan ma tagaba. oo nin weyn cidina ma ogolad ma garanaysa dadkiisa mooye. ninku mar hadduu weynaado dadkiisa mooye cid wax maraya ma jirto. marka dowladda waxaan ka codsanayaa inay waxay taraan ma garanaysa meelaha seexdo ayaa iigu daran hoy. meelaha seexdo haddaan helo wixii kaloo dhan waa sahalo weyn. meelaha seexdo iigu daran kulayl baa habeenkii markaan daaqadaha xidho waxay igu daran intaan lugta halkaa saaray ayaan cawarmo oo imika lugtaasaa xanuunta moogti. yurub waa jaarka ugu dhow ee xogogaalka u ah aabbahan muddada 15 sannadooda dhex seexanayay gaarigan. waxay iga warantay xaaladaha adag ee uu ku sugan yahay aabbahani, waxaanay ummadda muslimiinta u gudbinaysaa codsi ah inay dar ilaahay u caawiyaan aabbahan xaaladda adag ku sugan. in badan ayaanu halkaa jaarkayn muddo imka ilaa 6 sano gaadha. halkaa gaariga yaraad arkaysaan ayaa u hooyahaa. والله بدن دانغنا وما نافير سوى ندي شيء لهين وإحنا مودي شرون إنه ما نتي ميلها نشوجو ودجورجيس وهالكان كوير نولي معرورت قلبتي نكتها. لكن متى عم بنوجانا إنه هو يجيس هالكيه وتسكار كسان عريرتي ماشي للسيحان كارن إن واحد شرطة نظافة سولي ملها وحدة كاميرا ملها عمرجان وتاعي هاي ما شقة السنكرو يمكن وقدت كده دلو أديجي والله دي بعتفر بدن بعضي جماعة شقة هيسته qof halka ku noolow leeyo oo biyo haysan oo inta haysan haduu doono maalmaha anagu aan shahayriyada wax xiran hal asiina mooyaane inaanu helin bal laga yaabo daruga bisha Ramadaan oo kale aanu ogeyn meel ku hoyda iyo meel wax la cuno toona aad iyo aad buu dhibaataysan yahay. wax umada Ilaahay waxaan ku yiri ay wixii waxyaabo u gurmadaan oo waxaan ku samafalaa ay ayaan anagu jeclaan bilaadanku wixii waxyaabo u samafalo wadaadka halka ku cadilan in awlaad lahayn cid lahayn cid ka soo dabarisa cid u gargaarisa midna aanu ma arag. هلو جرمدا بيش على الوحي وحيابا تصدقها الله بحنا هو جرمدا إنك الكبرى بيتك كواهي كل الكا أدركتي قالوا واحد لقى يبي نقول ما تترى كشرة إن بدنا الله نحفر ديكرين وتألف بدنا دريميس بل هذا بس حنا يكوار. مدة 15 سنة gaariga ayaan dhex seexanayay. waa aabe gaboobay oo da' weliba danyara muddo 15 sannadooda waxa uu dhex seexanayay gaarigan idiin muuqda welina waa uu dhex sooxdaa. waxa uu ku nool yahay magaalada Hargeysa. gaarigani waxa uu yaalaa oo aabahani seexdaa geerashuu ka shaqayn jiray waqtigii uu xoogga ahaa. ma wada helo aabahani afarta waqti, ma haysto hoy iyo hutoona, inta ugu badanna waa qatan yahay. ma haysto cid dharka u maydha ama hayso oo xanaanaysa maadaama uu taagan yahay waqtigii lahayn lahaa. gaarigan ayaa baro iyo beyd u ah waxa ummadda islaamka inay soo caawiyaan una gargaaraan oo gacan islaamnimo u fidiyaan. imika muddo dheerba gaarigaasaan dhex seexanayay
15 sannadood muddo 15 sannadooda gaariga ayaan dhex seexanayay shaqadaydu makaanig birtuun bay ahayd berigii hore birtuun baan ka shaqayn jiray soomaad garan markaa imika waan itaal yaraadayoo birtii waan ka shaqayn kari waayo ma shaqeeyo moogti waxaan tiyana meel maan dhiganoo hanti ma lihi guri aan seexdo ma lihi magaaladaasaan dhex wareegaa markaa dadkii aanu axsaabta ahayn niman makaaniinoo aanu axsaab ahayn geerishkoodaan iska dhex seexdaa gaari yaroo dhex yaalla geerishka ayaan dhex seexdaa 15 sannadood gaarigaasaan dhex seexanayay wax ila hadloo waxay taraa amba waxii sheega oo hagaagsan maan arag dadka waxay qabanaya waxay la qabanaya ma diidayo waxa weeyaan waan u ducaynayaa waliba waan ogolay hadday wax igu tarayaan wax la dhiibayo waa ogolay dadka hadalka yar ee aan dadka waxba weydiin baan ahaa maantana danuun baa maxay ahayd halkaa dhigtay moogti mali kuwii aanu isugu dhaweyn waxba ma marayaan aba kuwaan aan iskaga tegay guryahooda aanan ma tagaba oo nin weyn cidina ma ogolad ma garanaysa dadkiisa mooyee ninku mar hadduu weynaado dadkiisa mooyee cid wax maraya ma jirto marka dowladda waxaan ka codsanayaa inay dee waxay taraan ma garanaysa meelaan seexdo ayaa iigu daran hoy meelaan seexdo haddaan helo wixii kaloo dhan waa sahalo weyn meelaan seexdo iigu daran kulayl baa habeenkii markaan daaqadaha xidho waxay igu daran intaan lugta halkaa saaray ayaan cawarmo oo imika lugtaasaa xanuunta moogti yurub waa jaarka ugu dhow ee xogogaalka u ah aabbahan muddada 15 sannadooda dhex seexanayay gaadhigan waxay iga warantay xaaladaha adag ee uu ku sugan yahay aabbahani waxaanay ummadda muslimiinta u gudbinaysaa codsi ah inay dar ilaahay u caawiyaan aabbahan xaaladda adag ku sugan in badan ayaanu halkaa jaarkayn muddooyinka ilaa 6 sano gaadha halkaa gaadhiga yaraad arkaysaan ayaa u hooyahaa wallaahi in badan daanaguna uma naafiirsa waan idin sheegi lahayn waxaan moodi jirin inuu maalintii meelahan joogo oo gurigiisa uu halkan ku yar nooli macroorta galabtiina ka tago laakiin muddo gaaban baan ogaanay inuu hooyigiisu halka yahay waska arkaysan in ciriirtay meesha la seexan karin waxa jirta eeg nadaafad suuli ma laha wax dhar ka meedha ma laha cimrigan uu taagayahay ma shaqaysan karo imka waqtiga dadka loo adeegayay dawladda dhibaato fara badan baa odayga meesha ka haysata qof halka ku noolow leeyo oo biyo haysan oo cunto haysan haduu doono maalmaha anagu aan shaahayr iyo de waxeeran hela siina mooyaane inaanu helin baa laga yaabaa daruga bisha Ramadaan oo kale aanu ogeyn meel ku hoyda iyo meel wax la cuno toona aad iyo aad buu dhibaataysan yahay wax umada Ilaahay waxaan ku yiri ay wixii waxyaabo u gurmadaan oo waxaan ku u samafalaar ayuu de ayaan anagu jeclaan bilaadanku wixii waxyaabo u samafalo wadaad kalka ku cadilan in awlaad lahayn cid lahayn cid ka soo dabarisa cid u gargaarisa mid aanu ma arag هلو قرمدو بيش على وحي وحيابا ده صدقها لا بحنا هو قرمدا ninka halka baraye beedka ku ahay kuleelka aad aragtay gaari wax laga yaabay inagu maanta tare ku jira inaad in badan aan loo dhex fadhii karin oo deel fara badan dareemayso balka hadaba seexanaya ka war muddo 15 sanadooda gaariga ayaan dhex seexanayay waa aabbe gaboobay oo da' waliba dan yara muddo 15 sanadooda waxa uu dhex seexanayay gaarigan idin muuqda walina waa uu dhex sooxdaa waxa uu ku nool yahay magaalada Hargeysa gaarigani waxa uu yaalaa aabahani seexdaa geerashu ka shaqayn jiray waqtigii uu xooga ahaa ma wada helo aabahani afarta waqti ma haysto hoy iyo hutoona inta ugu badanna waa qatan yahay ma haysto cid dharka u maydha ama hayso oo xanaanaysa maadaama uu taagan yahay waqtigii lahayn lahaa gaarigan ayaa baro iyo beyd u ah waxa ummadda islaamka inay soo caawiyaan una gargaaraan oo gacan islaamnimo u fidiyaan inuu muddo dheer ba gaarigaas dhex seexanay 15 sanadood muddo 15 sanadooda gaariga ayaan dhex seexanayay shaqadaydu makaanig birtuun bay ahayd berigii hore birtuun baan ka shaqayn jiray soomaad garan markaa imika waan itaal yaraadayoo birtii waan ka shaqayn kari waayo ma shaqeeyo moogti waxaan tiyana meel maan dhiganoo hanti ma lihi guri aan seexdo ma lihi magaaladaasaan dhex wareegaa markaa dadkii aanu axsaabta ahayn niman makaaniinoo aanu axsaab ahayn geerishkoodaan iska dhex seexdaa gaari yaroo dhex yaalla geerishka ayaan dhex seexdaa 15 sannadood gaarigaasaan dhex seexanayay wax ila hadloo waxay taraa
amba waxay sheega oo hagaagsan maan arag dadka waxay qabanaya waxay la qabanaya ma diidayo waxa weeyaan waan u ducaynayaa waliba waan ogolay hadday waxay ku tarayaan wax la dhiibayo waa ogolay dadka hadalka yar aan dadka waxba weydiin baan ahaa maantana danuun baa maxay ahayd halkaa dhigtay moogti mali kuwii isugu dhaweyn waxba ma marayaan oo aba kuwaan aan iskaga tagay guryahooda aan ma tagaba oo nin weyn cidina ma ogolad ma garanaysa dadkiisa mooyee ninku mar hadduu weynaado dadkiisa mooyee cid wax maraya ma jirto marka dawladda waxaan ka codsanayaa inay waxay taraan ma garanaysa meelaha seexdo ayaa igu daran hoy meelaha seexda haddaan helo wixii kaloo dhan waa sahalo weyn meelaha seexda igu daran kulayl baa habeenkii markaan daaqadaha xidho waxay igu daran intaan lugta halkaa saaray ayaan cawarmo oo imika lugtaasaa xanuunta moogti Yurub waa jaarka ugu dhow ee xogogaalka u ah aabbahan muddada 15 sannadood dhex seexanayay gaadhigan waxay iga warantay xaaladaha adag ee uu ku sugan yahay aabbahani waxaanay ummadda muslimiinta u gudbinaysaa codsi ah inay dar Ilaahay u caawiyaan aabbahan xaaladda adag ku sugan in badan ayaan halka jaarkayn muddooyinka ilaa 6 sano gaadha halka gaadhiga yaraad arkaysaan ayaa u hooyahaa والله بدن دانغنا وما نافير سوى ندي شيء لهين وإحنا مودي شرونينو ما نتي ميلهن شوقو ودقورجيس وهالكان كوير نولي معرورت قلبتنا كتغو لكن مدة قام بنوجانا إنه هو يجيس هالكيه وتسكار كسان عريرتي ماشي للسيحان كارن إن واحد شرطة نظافة سولي ملها وحدار كاميرا ملها عمرجان وتاعي هاي ما شقة السنكرو يمكن وقدت كده دلو أديجي والله دي بعتفر بدن بعضي جماعة شكاها هسه qof halka ku noolow leeyo oo biyo haysan oo inta haysan haduu doono maalmaha anagu aan shahayriyada wax xiran hal siina mooyaane inaanu helin baa laga yaabaa daruga bisha Ramadaan oo kale aanu ogeyn meel ku hoyda iyo meel wax la cuno toona aad iyo aad buu dhibaataysan yahay wax umada Ilaahay waxaan ku yiri wixii waxyaabo u gurmadaan oo waxaan ku samafalaa ayuu ayaan anagu jeclaan bilaadanku wixii waxyaabo u samafalo wadaadka halka ku cadilan in awlaad lahayn cid ka soo dabarisa cid u gargaarisa midna aanu ma arag in haloo gurmado beesha calmi waxyaaba dad sadaqaha la baxana ha gurmada ninka halka baraye beedka ku ah kuleelka aad aragtay gaari wax laga yaabay inagoo maanta tareey ku jira in badan aan la dhex fadhiyo karin oo deel fara badan dareemayso balka hadaba seexanaya ka war muddo 15 sanadooda gaariga ayaan dhex seexanayay waa aabbe gaboobay oo da' waliba dan yara muddo 15 sannadood waxa uu dhex seexanayay gaarigan idin muuqda walina waa uu dhex sooxda waxa uu ku nool yahay magaalada Hargeysa gaarigani waxa uu yaalaa aabahani seexda geerash uu ka shaqeyn jiray waqtigii uu xoog ahaa ma wada helo aabahani afarta waqti ma haysto hoy iyo hutoona inta ugu badanna waa qatan yahay ma haysto cid dharka u maydha ama haysto oo xanaanaysa maadaama uu taagan yahay waqtigii lahayn lahaa gaarigan ayaa baro iyo beyd u ah waxa ummadda islaamka inay soo caawiyaan una gargaaraan oo gacan islaamnimo u fidiyaan inuu muddo dheer ba gaarigaas dhex seexanay 15 sanadood muddo 15 sanadood gaariga ayaan dhex seexanayay shaqadaydu makaanig birtun bay ahayd berigi hore birtun baa ka shaqayn jiray Soomaad garan markaa imika waan Italiya raadayo birtii waan ka shaqayn kari waayo ma shaqeeyo moogti waxaan tiina meel maan dhigano hanti malihi guri aan seexdo malihi magaalada dhex wareega markaa dadkii aan xsaab tahay niman makaariin oo aan xsaab ahayn geerishkooda iska dhex seexda gaari yar oo dhex yaala geerishka ayaan dhex seexda 15 sanadood gaarigaas dhex seexanay wax ilaaha loo waxay taraa amba waxay sheega oo hagaagsan maan arag dadka waxay la qabanaya ma diidayo waxa weeyaan waan u ducaynayaa waliba waan ogolay hadday waxay ku tarayaan wax la dhiibayo waa ogolay dadka hadalka yar aan dadka waxba weydiin baan ahaa maantana danuun baa maxay ahayd halka dhigtay moogti mali kuwii isugu dhaweyn waxba ma marayaan oo aba kuwaan aan iskaga tagay guryahooda aan ma tagaba oo nin weyn cidina ma ogolad ma garanaysa dadkiisa mooyee ninku mar hadduu weynaado dadkiisa mooyee cid wax maraya ma jirto marka dawladda waxaan ka codsanayaa inay waxay taraan ma garanaysa
meelaan seexdo ayaa iigu daran hoy meelaan seexdo haddaan helo wixii kaloo dhan waa sahalo weyn meelaan seexdo iigu daran kulayl baa habeenkii markaan daaqadaha xidho waxay igu daran intaan lugta halkaa saaray ayaan cawarmo oo imika lugtaasaa xanuunta moogti Yurub waa jaarka ugu dhow ee xogogaalka u ah aabbahan muddada 15 sannadood dhex seexanayay gaadhigan waxay iga warantay xaaladaha adag ee uu ku sugan yahay aabbahani waxaanay ummadda muslimiinta u gudbinaysaa codsi ah inay dar Ilaahay u caawiyaan aabbahan xaaladda adag ku sugan in badan ayaan halka jaarkayn muddaymka ilaa 6 sano gaadha halka gaadhiga yaraad arkaysaan ayaa u hooyahaa والله بدن دانغنا وما نافير سوى ندي شيء لهين وإحنا مودي شرون إنه ما نتي ميلها نشوقه ودقرقي وهالكم كوير نولي معرورت قلبتنا كتغو لكن مدة قام بنوجانا إنه هو يجيسو هالكيه وتسكار كيسان عريرتي ماشي للسيحان كارن إن واحد شرطة نظافة سولي مالها واحد أركان بعيدا مالها عمرجان وتاعي هاي ما شقة السنكرو يمكن وقدت كده اللي أديجي والله دي بعتفر بدن بعضي ما شاكها هسه qof halka ku noolow leeyo oo biyo haysan oo inta haysan haduu doono maalmaha anagu aan shahayriyada wax xeeran hal asiina mooyaane inaanu helin bal laga yaabo daruga bisha Ramadaan oo kale aanu ogeyn meel ku hoyda iyo meel wax la cuno toona aad iyo aad buu dhibaataysan yahay wax umada Ilaahay waxaan ku yiri ay wixii waxyaabo u gurmadaan oo waxaan ku u samafalaa ayuu anagu jeclaan bilaadanku wixii waxyaabo u samafalo wadaad kalka ku cadilan in awlaad lahayn cid ka soo dabarisa cid u gargaarisa mid aanu ma arag إن هلو جرمدا بيش على الوحي وحيابا الصدقة هلا بحنا هو جرمدا إنك الكابرية بيتك كواهي كل الكا أدركتي قالوا واحد لقى يبي نقول ما تترى كتير إن إن بدنا الله نحفظ ديكرين وتألف ربنا الدريميس بلك هذا بس حنا يكوار متشانية سمس الموضوع gaariga ayaan dhex seexanayay waa aabe gaboobay oo da' waliba dan yara muddo 15 sannadood waxa uu dhex seexanayay gaarigan idin muuqda walina waa uu dhex sooxda waxa uu ku nool yahay magaalada Hargeysa gaarigani waxa uu yaalaa aabahani seexda geerashu ka shaqayn jiray waqtigii uu xooga ahaa ma wada helo aabahani afarta waqti ma haysto hoy iyo hutoona inta ugu badan waa qatan yahay ma haysto cid dharka u maydha ama hayso oo xanaanaysa maadaama uu taagan yahay waqtigii lahayn lahaa gaarigan ayaa baro iyo beyd u ah waxa ummadda islaamka inay soo caawiyaan una gargaaraan oo gacan islaamnimo u fidiyaan inuu muddo dheer ba gaarigaas dhex seexanay 15 sannadood muddo 15 sannadood gaariga ayaan dhex seexanayay shaqadaydu makaanig birtun bay ahayd berigi hore birtun ba ka shaqayn jiray Soomaad garan marka imika waan Itaali yaraadayo bilkii waan ka shaqayn kari waayo ma shaqeeyo moogti waxaan tiyaana meel maan dhigan oo hanti malihi guri aan seexdo malihi magaalada san dhex wareega marka dadkii aan maxsaab tahay niman makaariin oo aan maxsaab ahayn geeriskooda iska dhex seexda gaari yar oo dhex yaala geeriska ayaan dhex seexda 15 sannadood gaarigaas dhex seexanay wax ilaaha loo waxay tara amba waxay sheega oo hagaagsan ma arag dadka waxay la qabanaya ma diidayo waxa weeyaan waan u ducaynaa waliba waan ogolay haday wax igu tarayaan wax leeydhiibayo waa ogolay dadka hadalka yar aan dadka wax weydiin baan ahaa maanta danun ba maxay ahayd halka dhigtay moogti mali kuwii isugu dhaweeyay waxba ma marayaan oo ku aan iskay guriyahooda aan ma tagaba oo nin weyn cidina ma ogolad ma garanay dadkiisa mooyee nigu mar rajuu weynaado dadkiisa mooyee cid wax maariya ma jirto marka dawladda waxaan ka codsanayaa inay waxay tiraan ma garanay meelaan seexdo ayaa iigu daran hoy meelaan seexdo haddaan helo wixii kaloo dhan waa sahalo weyn meelaan seexdo iigu daran kulayl baa habeenkii markaan daaqadaha xidho waxay igu daran intaan lugta halkaa saaray ayaan cawarmo oo imika lugtaasaa xanuunta moogti Yurub waa jaarka ugu dhow ee xogogaalka u ah aabbahan muddada 15 sannadood dhex seexanayay gaarigan waxay iga warantay xaaladaha adag ee uu ku sugan yahay aabbahani waxaanay ummadda muslimiinta u gudbinaysaa codsi ah inay dar Ilaahay u caawiyaan aabbahan xaaladda adag ku sugan in badan ayaan halka jaarkayn muddaymka ilaa 6 sano gaadha halka gaariga yaraad arkaysaan ayaa u hooyahaa
والله بدن دانغنا وما نافير سوى ندي شيء لهين وإحنا مودي شرون إنه ما نتي ميلها شوقه ودجورجيس وهالكم كوير نولي معرورت قلبتنا كتره لكن مدة عوام بنوجانا إنه هو يجيس هالكيه وتسكار كسان عريرتي ماشي للسيحان كارن إن واحد شرطة نظافة سولي ملها وحدة كاميرا ملها عمرجان وتاجي هاي ما شقة السنكرو يمكن وقدت كده دلو أديجي والله دي بعتفر بدن بعضي جماعة شكاها ستة قفل كأكون لوليد أون بيهايسني أون انتهايسني هذو دونا معلمها أنا وأنا شهير يدي وحيران هلا سينا موياني إنه هيلين بالغيا بدرجة بيش سربدان أكله أنا أجين ميل اللي ميل كوه يدا يميل وحلا عنتهانا هذه أدبودي باتيسين هاي وحمد إلهي وحنقول أي وحي وهي بوجر مدانا وحنقول أوصل فلان أي ده يعني أنا شعلان بلا آدم كوحي وهي بوصل فلان وده كلك وعدلان أنا أولاد الله هنا عيد الله هنا عيد كسر دبر السعيد وبرجاري سمينا عنه ما نراك إن هلو جر مدان بيش على وحي وحيابا ده صدقة هلا بحنا هو جر مدان إنك الكبر أي بيت كقاه كل الكا أدركتي قالوا واحد لقى بينكم ما تترى كتير إن بدنا الله نحفظ ذكرين وده الفرق بدنا الدريميس بل هذا بس حنا يكوار muddo 15 sanadooda gaariga ayaan dhex seexanayay waa aabe gaboobay oo da' waliba dan yara muddo 15 sanadooda waxa uu dhex seexanayay gaarigan idin muuqda walina waa uu dhex sooxdaa waxa uu ku nool yahay magaalada Hargeysa gaarigani waxa uu yaalaa aabahani seexdaa geerashuu ka shaqayn jiray waqtigii uu xoog ahaa ma wada helo aabahani afarta waqti ma haysto hoy iyo hutoona inta ugu badanna waa qatan yahay ma haysto cid dharka u maydha ama hayso oo xanaanaysa maadaama uu taagan yahay waqtigii lahayn lahaa gaarigan ayaa baro iyo beyd u ah waxa ummadda islaamka inay soo caawiyaan una gargaaraan oo gacan islaamnimo u fidiyaan inuu muddo dheerba gaarigaas dhex seexanay 15 sanadood muddo 15 sanadooda gaariga ayaan dhex seexanayay shaqadaydu makaanig birtuun bay ahayd berigii hore birtuun baan ka shaqayn jiray Soomaad garan markaa imika waan Itaaliya raadayo birtii waan ka shaqayn kari waayo ma shaqeeyo moogti waxaan tiyaana meel maan dhigano hanti malihi guri aan seexdo malihi magaalada dhex wareega markaa dadkii aan xsaab tahay niman makaariin oo aan xsaab ahayn geerishkooda iska dhex seexdaa gaari yar oo dhex yaala geerishka ayaan dhex seexdaa 15 sanadood gaarigaas dhex seexanay wax ilaaha loo waxay tara amba waxay sheega oo hagaagsan ma arag dadka waxay qabanaya ma diidayo waxa weeyaan waan u ducaynaya waliba waan ogolay haday waxay ku tarayaan wax leey dhiibayo waa ogolay dadka hadalka yar aan dadka wax weydiin baan ahaa maanta danuun ba maxay ahayd halka dhigtay moogti mali kuwa aanu isugu dhaweyn waxba ma marayaan oo kuwan aan iskaga guriyahooda aan ma tagaba oo nin weyn cidina ma ogolad ma garanay dadkiisa mooyee nigu mar rajuu weynaado dadkiisa mooyee cid wax mariya ma jirto marka dawladda waxaan ka codsanayaa inay waxay taraan ma garanayso meel aan seexdo ayaa igu daran hoy meel aan seexdo hadaan helo wixii kale oo dhan waa sahalowi meel aan seexdo igu daran kulayl baa habeenkii markaan daaqada xidho waxay igu daray intaan lugta halka saaray ayaan cawarmo imka lugta saaxanunta moogti Yurub waa jaarka ugu dhow ee xogogaalka u ah aabahan muddada 15 sanadooda dhex seexanayay gaarigan waxay iga warantay xaaladaha adag ee uu ku sugan yahay aabahani waxaanay ummadda muslimiinta u gudbinaysaa codsi ah inay dar Ilaahay u caawiyaan aabahan xaaladda adag ku sugan in badan ayana halka jaarkayn muddaymka ilaa 6 sano gaadha min halka gaariga yaraad arkaysaan ayaa u hooyaha والله بدن دانغنا وما نافير سوى ندي شيء لهين وإحنا مودي شرون إنه ما نتي ميلها شوقه ودجورجيس وهالكم كوير نولي معرورت قلبتنا كتره لكن مدة عوام بنوجانا إنه هو يجيس هالكيه وتسكار كسان عريرتي ماشي للسيحان كارن إن واحد شرطة نظافة سولي ملها وحدة كاميرا ملها عمرجان وتاجي هاي ما شقة السنكرو يمكن وقدت كده دلو أديجي والله دي بعتفر بدن بعضي جماعة شكاها ستة قفل كأكون لوليد أون بيهايسني أون انتهايسني هذو دونا معلمها أنا وأنا شهير يدي وحيران هلا سينا موياني إنه هيلين بالغيا بدرجة بيش سربدان أكله أنا أجين ميل اللي ميل كوه يدا يميل وحلا عنتهانا هذه أدبودي باتيسين هاي
وحمد إلهي وحن كوري أي وحي وهي بقى وجرمدان أي وحن كوري وصم فلان أي ده يعني أنا شعلًا بلا آدم كوحي وهي بقى وصم فلان وده كلك وعدلان أنا أولاد الله هنا عيد الله هنا عيد كسر دبر السعيد وبجرجاري سمينا عنه ما نراك هلو جرمدان بيش على وحي وهي بقى الصدقة هلا بحنا هو جرمدان إن كلك برأي بيت كقاه كل الكا أدركتي قالوا واحد لقى يبي نقول ما تترى كشرة إن بدنا الله نحفظ ذكرين وتألف ربنا دريميس بلك هذا بس حنا يكوار مدرسني تمسنا هذا gaariga ayaan dhex seexanayay waa aabe gaboobay oo da' waliba dan yara muddo 15 sannadood ah waxa uu dhex seexanayay gaarigan idin muuqda walina waa uu dhex sooxdaa waxa uu ku nool yahay magaalada Hargeysa gaarigani waxa uu yaalaa aabahani seexdaa geerashuu ka shaqayn jiray waqtigii uu xoog ahaa ma wada helo aabahani afarta waqti ma haysto hoy iyo hutoona inta ugu badanna waa qatan yahay ma haysto cid dharka u maydha ama hayso oo xanaanaysa maadaama uu taagan yahay waqtigii lahayn lahaa gaarigan ayaa baro iyo beyd u ah waxa ummadda islaamka inay soo caawiyaan una gargaaraan oo gacan islaamnimo u fidiyaan imka muddo dheer ba gaarigaas dhex seexanay 15 sannadood muddo 15 sannadood gaariga ayaan dhex seexanayay shaqadaydu makaanig birtun bay ahayd berigi hore birtun baa ka shaqayn jiray Soomaad garan marka imka waan Itaali yaraadayo birtii waan ka shaqayn kari waayo ma shaqeeyo moogti waxaan tiyaana meel ma dhigan oo hanti malihi guri aan seexdo malihi magaalada san dhex wareega marka dadkii aan maxsaab tahay niman makaariin oo aan maxsaab ahayn geeriskooda iska dhex seexda gaari yar oo dhex yaala geeriska ayaan dhex seexda 15 sannadood gaarigaas dhex seexanay wax ilaaha loo waxay tara amba waxay sheega oo hagaagsan ma arag dadka waxay la qabanaya ma diidayo waxa weeyaan waan u ducaynaa waliba waan ogolay haday wax igu tarayaan wax la dhiibayo waa ogolay dadka hadalka yar aan dadka wax weydiin baan ahaa maanta danun ba maxay ahayd halka dhigtay moogti mali kuwaan isugu dhaweyn waxba ma marayaan oo ku aan iskaleeyay guriyahooda aan ma tagaba oo nin weyn cidina ma ogolad ma garanay dadkiisa mooyee nigu mar rajuu weynaado dadkiisa mooyee cid wax maariya ma jirto marka dawladda waxaan ka codsanayaa inay jaw waxay tiraan ma garanay meel aan seexdo ayaa igu daran hoy meel aan seexdo hadaan helo wixii kale oo dhan waa sahalowi meel aan seexdo igu daran kulayl baa habeenkii markaan daaqada xidho waxay ugu dareyntan lugta halka saaray ayaan cawarmo imka lugta saaxanunta moogti Yurub waa jaarka ugu dhow ee xogogaalka u ah aabahan muddada 15 sannadood dhex seexanayay gaarigan waxay iga warantay xaaladaha adag ee uu ku sugan yahay aabahani waxaanay ummadda muslimiinta u gudbinaysaa codsi ah inay dar Ilaahay u caawiyaan aabahan xaaladda adag ku sugan in badan ayaan halka jaarkayn mudaymka ilaa 6 sano gaadha min halka gaariga yaraad arkaysaan ayaa u hooyaha wallahi in badan daanaguna ma naafiir sawan idii sheegay lahayn waxaan moodi jirin inuu maalintii meelahan joogo oo gurigiisa oo halkan ku yar nooli ma aroorta galabtiina ka tago laakiin muddo gaaban baan ogaanay inuu hooyigiisu halkay waska arkaysan ciriirtay meesha la seexan karin waxa jirta eeg nadaafad suuli ma laha wax dhar ka meedha ma laha cimrigan uu taagayahay ma shaqaysan karo imka waqtiga dadka loo adeegayay dawladda dhibaato fara badan baa odayga meesha ka haysata qof halka ku noolow leeyo oo biyo haysan oo cunto haysan haduu doono maalmaha anagu aan shahayr iyo wax xeeran hela siina mooyaane inaanu helin baa laga yaabaa daruga bisha Ramadaan oo kale aanu ogeyn meel ku hoyda iyo meel wax la cuno toona aad iyo aad buu dhibaataysan yahay wax umada Ilaahay waxaan ku yiri wixii waxyaabo u gurmadaan oo waxaan ku soo falaan ayuu de ayaan anagu jeclaan bila aadanku wixii waxyaabo u soo falo wadaad kalka ku cadilan awlaad lahayn cid lahayn cid ka soo dibir saciid u gargaari samidna aanu ma arag هلو جرمدان بيش على وحي وحيابا الصدقة هلا بحنا هو جرمدان إن كالك برأي بيت كقاه كل الكا أدركتي قالوا واحد لقى يبي نقول ما تترى كشرة إن بدنا الله نحفظ ذكرين وتألف ربنا دريميس بلك هذا بس حنا يكوار مدة 15 sannadood
gaariga ayaan dhex seexanayay. waa aabbe gaboobay oo da' ah weliba danyar ah muddo 15 sannadood ah waxa uu dhex seexanayay gaadhigan idiin muuqda welina waa uu dhex sooxdaa waxa uu ku nool yahay magaalada Hargeysa gaadhigani waxa uu yaalaa oo aabbahani seexdaa geerashuu ka shaqayn jiray waqtigii uu xoogga ahaa ma wada helo aabbahani afarta waqti ma haysto hoy iyo hutoona inta ugu badanna waa qatan yahay ma haysto cid dharka u maydha ama hayso oo xanaanaysa maadaama uu taagan yahay waqtigii lahayn lahaa gaadhigan ayaa baro iyo beyd u ah waxa ummadda islaamka inay soo caawiyaan una gargaaraan oo gacan islaamnimo u fidiyaan imika muddo dheerba gaadhigaasaan dhex seexanayay 15 sannadood muddo 15 sannadooda gaadhiga ayaan dhex seexanayay shaqadaydu makaanig birtuun bay ahayd berigii hore birtuun baan ka shaqayn jiray soomaad garan markaa imika waan itaal yaraadayoo birtii waan ka shaqayn kari waayo ma shaqeeyo moogta waxaan tiyana meel maan dhiganoo hanti ma lihi guri aan seexda ma lihi magaaladaasaan dhex wareegaa markaa dadkii aanu axsaabta ahayn niman makaaniin oo aanu axsaab ahayn geerishkoodaan iska dhex seexdaa gaadhi yaroo dhex yaalla geerishka ayaan dhex seexdaa 15 sannadood gaadhigaasaan dhex seexanayay wax ilaa hadloo waxay tara amba waxay sheega oo hagaagsan maan arag dadka waxay qabanaya waxay la qabanaya ma diidayo waxa weeyaan waan u ducaynaya waliba waan ogolay hadday wax igu tarayaan wax la dhiibayo waa ogolay dadka hadalka yar aan dadka waxba weydiin baan ahaa maantana danuun baa maxay ahayd halkaa dhigtay moogta mali kuwii aanu isugu dhaweyn waxba ma marayaan oo kuwan aan iska tagay guryahooda aan ma tagaba oo nin weyn cidina ma ogolad ma garanayso dadkiisa mooyee nigu mar raju weynaado dadkiisa mooyee cid wax mariya ma jirto marka dawladda waxaan ka codsanayaa inay jaw waxay taraan ma garanayso meel aan seexdo ayaa igu daran hoy meel aan seexdo haddaan helo wixii kaloo dhan waa sahalo weyn meel aan seexdo igu daran kulayl baa habeenkii markaan daaqadaha xidho waxay igu daray intaan lugta halkaa saaray ayaan cawarmo imika lugtaasaa xanuuntay moogti yurub waa jaarka ugu dhow